boqol iyo lixdan iyo laba taariikhda hijriga markay ahayd ayaa wuxuu ku dhintay waddanka suuriya ayaa lagu aasay sawaaxili suuriya masaajid weyn oo la yidhaha jaamica sultaan ayaana laga dhisay meeshii iyada ahayd haddaba qisa dhex martay ibraahim ibnu adham iyo wiil yaroo dhallinyaro ah baan rabaa inaan idinla wadaago balo fiirso waa nin dhallinyaraha baa u yimid wuxuu ku uhi yaa sheekh ibraahim waxaan kaa rabaa macaasidaydaa badatay iyo dunuubtaydu way badatay ii naseexee wax isii naseexa ah oo macsiyadan iskaga joojiyo balo fiirsada qof walba oo marka su-aalaha shantaa bal aduu ka jawaab wuxuu ku yidhi wiilkiibuu la hadlay wuxuu yidhi 5 arrimood baan kuu sheegaye 5taa arrimood haddaad iiga jawaabto waxa rabta iska samee marka wiilku wuxuu yidhi baa la yidhi alxamdulilah maanta waxaaban helay sheekh oo just questionis uun igu xidhaaya condition 5 xabaa haddaan ka soo baxo macsiyada waa samayn karaa ii sheeg buu yidhi 5taa arrimood wuxuu ku yidhi haddaad rabto inaad ilaahay caasido olu fiirso falaa ta'kul risqahu ilaahay cuntadiisa ha cunin waa su'aal ilaahay haddaad rabto inaad caasido cuntadiisa ha cunin wuxuu yidhi wiilkii fa min ayna aakul oo xaggeen haddaba cunto ka cunaa wuxuu yidhi maandhow ma kula qumantahay adiga وكل ما في الأرض إلهي بأسكال إبراهيم وحور يا هذا أفيحسن أن تأكل الرزق الله وتعصيه ما كلفي عن تهين الإلهي رزقه سبعنته وهذا الإلهي عاسنيس هذا ما كلفي عن تهين وسؤالك الجواب وحارتين إلهي عاسر صوما هي عنتدي سوداء استقال عاسنيس ربي سبحانه وتعالى wuxuu kuu diray waad diidantahay wuxuu kaa reebayna waad samaynaysaa risqigiisa u dhaaf oo ma risqi kalaa jiro adduunka aad cuni kartaa maya haddaba ma kula fiican tahay inaad ilaahayna caasido oo amarkiisana diiddo nahyuu kaa reebayna aad samaynayso maca daalikana wixiisa aad cunayso wuxuu yidhi haati thaani bal ta labaad ii sheeg inay ka roon tahay tan kama jawaabi karo ta labaad wuxuu ku yidhi ibraahim يا هذا هداد ربط إن الإلهي عاصده فلا تسكن فوق أرضه ولا شيئا من بلاده هداد ربط إلهي إن عاصده إلهي دول كيسة هدقين ودا وحير وكلو حقين هذا ومال كلو اللي استاقا دونك كجرتون الله لهين وحير وأديك مقلق روح صنتهي ولو فرسو inaad ilaahay goboshiisa ku jiifto ilaahay calaykum ilaahay goboshiisa inaad ku jiifto oo dhulkiisa ku jiifto ood haddana caasinaysa ma kula qurux badan tahay ayib waayaa wuxuu yidhi bal midda saddexaad ii sheeg inay ka roon tahay wuxuu yidhi haddaa rabto inaad ilaahay caasido risqigiisii adigoo risqigiisii cunaya oo gurigiisii deggan haddaba bal waxaad raadsataa meel uuna ilaahay ku arkaynin raadso hay ka dhuumo ilaahay ka dhuumo oo wuxuu yidhi ilaahay maa fi damaa'ir waxa qalbiga ku jiro buu ogyahay sanaga dhuuntaa oo wuxuu yidhi haddaba ma ilaahay oo ku arkaya rabta inaad wax samayso kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka soo maahin ma ilaahay oo kuu jeeda adiga wax samaynaysaa haye haati raabica bal ta afraad ii sheeg buu yidhi wuxuu ku yidhi ta afraad haddaa rabto inaad ilaahay caasido malakulmowdku markuu kuu yimaado waxaad tidhaahdaa wax yar isug waa toobad keenayaa wuxuu yidhi oo miyuga yeelayaa oo hadduuna kaa yeelaynin ood ogtahay inaan lagaa yeelaynin adugu marka ma kula qumanta inaan caasido haye haati alkhaamisa bal tashanaad ii sheeg buu yidhi wuxuu yidhi haddaad intaasoo dhan diiday markay azabaaniya ku yimaadaan azabaaniya sanadcu zamaaniya malaa'igta naarta ka shaqayso qofka qaadaysa iska diid ha yeelin ha raacin wuxuu yidhi miga yeelayaan wuxuu yidhi haddayna kaa yeelaynin ma kula qurux badan tahay haddaba adiga inaad ilaahay inta wuxuu yidhi ilaahayow adaan kuu toobad keenay wiilkiina ibraahim ibnu adham buu la joogay oo ilaahay ugu toobad keenay
weligiina waxaa la yidhi geerida iyo unbaa kala geysay labadooda ugu dambaynta iyo gebagabada waxaan idinku soo gebagabaynayaa gabaygaan yar gabaygaan isaga naftiisu waa qiso dhex martay abi xaamid nin la odhan jiray ibnu jawsi baa soo guuriyey talbiisu ibliis ayuu kitaabkaa ku soo guuriyey iyo abi xaamid alkhalaqaani iyo imaamu axmed bay dhex martay imaamu axmed sheekh baa u yimid imaamu axmed bin xambal markaasaa wuxuu ku yidhi yaa sheekh axmed qasaa'idda wacdiga ka hadasha iyo raqaa'iqa quluubta adugu ma aqridaa markaasaa wuxuu yidhi sida tee oo kale adugu ii sheeg midee rabtaa sida gabayga dhahaya buu yidhi idaa maa qaala lirabbi ama staxyayta tacsiini gabayga dhacayo oo kale hadduu rabbi yidhaahdo idaa maa qaala lii rabbi balu fiirso hadduu rabbi igu yidhaahdo ama staxyayta tacsiini war miyaadan iga xishoonaynin oo may caasinaysaa sida gabaygaas oo kale wa tukhfi danba min khalqi oo ma dadka ayaad ka qarinaysaa dunuubta wa bilcisyaani ta'tiinii ma anigana ma waa ii iman adigoo anigay caasinaya imaamu axmed bin xambal waxaa la yidhi guriga intuu galay uu albaabka saa u celiyey ayaa guriga gudihiisa laga maqlay isagoo labadan beyd ku celcelinaya idaa maa qaala lirabbii ama staxyayta tacsiinii wa tukfi danba can khalqii wa bilcisyaani ta'tiinii isagoo dhahaya oo weliba ooyaya ayaa axmed bin xambal gudaha guriga laga maqlay gabaygaa marka imaamkaa weyn ka oohiyey na wuxuu ahaa sidan haddii uu idaa maa qaala lirabbi hadduu rabbi igu yidhaahdo ama staxyayta tacsiini war miyaadan xishoonaynin oo may caasinaysaa wa tukfi danba can khalqi ma dadkaad ka qarinaysaa dembiga wa bilcisyaani ta'tiini ma anigana ma ii iman adigoo ay caasinaya fa kayfa ujiibu yaa wayxi maxaan ugu jawaabi doonaa yaa rabbi maxaan ku jawaabnaa waman daa sawfa yaxmiini yaa rabbi naga ilaalin doona usalli nafsa bilaamaali min xiinin ilaa xiini ma nafta ayaan u sii daynaa waxay rabto wa ansaa maa waraa'a almowti ma waxaan halmaannaa geerida iyo waxa ka dambeeya kaannii qad damintu alcaysha laysa almowtu yaatiini waxaad mooddaa qof waliba inuu damaanad uu haysto inuu noolaanayo in muddo ah وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني سكرات الموت أيام مرك إيمان دون نظرت إلى الوجوه وحال في ريب وضدكي أليس منكم من سيفتين ورقف ما تيفرنا يا مجرى قف كضدك كوجود شعل مرك النفط كاب حيصو هذه تلوى يوفر ورقح قفنا كايلي ماي بل أنت قبر مدولة وجريو أي لقاسو دريرية سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني وحال ويدينتنا كذب وحال وحي أدونك أتكسو سميسي ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعون ميين نمغ الإله وإنه يري سبحانه وتعالى ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسين سورة قاف هي سورة ياسين وحكيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من سيويني مرك إلهي سبحانه وتعالى أن توبت كانه نداء يا خلاصة محاضرتين وحاوي قف والبو دنبي والله إلهينا سبحانه وتعالى أمدي سوحوج عليها قفك أنتم خطاقة يا دنبي قال لكن أصول الله مرك إلهي أن أصول الله بنو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله رحمة إلهنا يناك قوصن ربي وحان هلينا قعميس وأي فريهين أو إن سور دوية إلهي سبحانه وتعالى توبة إنها أقبلوا توبة الله إنها أقبلوا دنبقين إن الله إنه رافوا ربنا عبادي سأدومي سر الله إنه دروا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم جزاه الله خير يا شيخ نور الله خير بابا هسيو أرنتاس وعدي ونحسن ما شاء الله ما أقبله إلهنا نظام فعابنتي الروضنا لي رب ضمبا شكين يسن روحي وعدي هو صعب هذا حتى فهم إن ندخل نسبك إن شاء الله تعالى أن ماذا احترامه هذا يغير من وعدي صعب إن شاء الله وحلجوا وقتي صلاة المغرب التكرهي
markii salaada saa loo tukado inaan soo